وأنا سلامة أخيارتا هدي aad kanaalkan ku cusub tahay fadlan subscribe saar si aad fiidiyoyada cusub ee kanaalka ula socoto taaba gambaleelka notification-ka. bismillaahi raxmaani raxiim aniga magacayga waxaa la dhahaa Guleed Maxamed Axmed waxaan ahaa maxaabiistii ku xidhnayd xabsiga in badan 6 sano ku xidhnaa waxaa jiray yar in hadda naxas baan leh mar qabta anagoo 36 ruux aan lagu xareeyay aniga ayaa ugu cilad yaraaday naxas baan hadda leh naxas mar buu qabtaa bilishigii qaar way ku dhinteen qaar hadda magaalada Jijiyana la joogaan iyagoo suuxdan qaba qaar qabri darbi joogan iyagoo cudurkooda suuxin isu bedelay inta kale waxyaalaha ay u yaabka badnaa waxaa ka mid ah wadaad isaguna magaciisa hadaan loobay oo Jijiye laga keenay magaalada Jijiye dadkii hidaartii maalinka Jijiye lagu qabanay laga keenay kamid ah 5 habeen buu nala xidhnaa maalinkii lixaad habeenkii walaal bixi jiray kuyuutan wiil isagu ku jiro oo maalmaha naloo keenay 5 habeen buu nala baxay habeenkii lixaad isagoo meydaan naloo keenay dad jirkiisa matalan aan ka warramo halka gumeerka ilaa halka feeraanta u dhaxaysa waxay u ekaayeen madow bay noqotay gacmaha laba meelood ka jabnaa hadda nabarada ku yaala kama sheekeen karo dadkii ugu soo horeeyay baan ahaa ay gacanta ka taabtay oo inay ka baxdeen kaleete aniga yarka hadda xarunta Maarayaha ka Cabdirasaaq iyo xarunta ETV-ga marka dadkii waxaad soo lahaan la 900 iyo jarjar wiil aniga way ugu ag dhinteen intaan meesha ku jiray waxay ugu daraaxay xilligii caynsan wuxuu kuma gaajay macluushi dadkii waa dhintay waxa kamid ah Cabdirasaaq dheere oo anjeeradii dawladdu marmar oo keenaysa cun waayay israaqadiisu caana ay noqotay markii dambe caanaan weynii dadkii jubtu waxay laysa kamid ah badmaax baa kamid ah sida loo garanayo marka wallahi ma soo koobi karo dadkii halkan waa dhintay walaalada yahay aniga Ilaahay wuu badbaadiyay ma soo koobi karo wallahi dhibaatooyinka meeshan ka dhacay mid hadda aynu hadal ku soo koobi karo ma aha qof aan arag ama aan xoogaal ka ahayna mid uu macnaha uu dareemi karo ma aha waxaad arkaysaa kabtan oo ilaa 10 ruux intaad arkayso iyo istaagi jireen intaad arkayso 10 ruux baa istaagi jirtay markii waxaan nafis jiray markuu dadku daato yaan oran jiray bal qaarun noo daataa bal inuuna inaga yar nafis marka ruuxa dhaca kii naf baxaysa waa siiso kolkii way tuuri jireen kii marka dhaca kabtaasay dhigi jireen kabta markay dhigaan waxa anagu nafis baan oran jiray oo ilaahay soo durban uu soo miirsanin baan oran jiray si aan anagu xilliga jaanis aanu helno inaan in yar nafisno lugta aanu yar dabcin halkan aad leeyahay nafteena oo keeneen waa boosaneerooyinkii qayb kamid ah waxa isugu yimaada qashub dadka maxaabiista jeelka ku jirta ee faraha badan suuliyaasha ay galaan musqulaha iyo shaaburada qashinka macnaha ama saxaraha ama biyaha macnaha ka soo baxay isugu yimaada hadda goobo macnaha ay kabtan kamid tahay halkaas oo kale ay u yihiin goobahaas ragii waxaan kamid ahaa macnaha la galiyay barkad macnaha fadhida oo xaar iyo kaadi ah in macnaha qof bil aadan uu la geliyo oo iska noolaado haddaynu aragnay laakiin dadka bil aadanka maskaxdiisa aad looga dhaadhicin karo qof baa intii barkad noocaas uu galay oo la maqhuursiyay iyo haddana noolaaday cidii macnaha gelisay iyo cidii ay qabsatay baa macnaha dareemi karta laakiin qof looga sheekeeyay arintaas aad uga dhaadhici karayso saxaafadda ma u banaysaa meeshan aad aragtaan waa barkadii loogu magac daray Abay Macmiil dhulkan aad aragtid barkada waa tan hadda quraan ka aragnay iyo goobo yar oo kale way farbadan yihiin kuwa waxaa jira macnaha ay xaaladoodu ay idinka salsalinayso waxaan oo fadhiya oo biyo iyo xaar iyo waxaan loo baahnayna macnaha qashin oo buuxa ayaa dad bil aadan intii la geliyo meeshan hadda galay waxa ku jirta waa fiiriyo gudaheeda soo fiiriyay waa 20 qof ilaa 15 qof baa galaysa waa meel hoola tiirar baa ka tagtaagan xaar baa ka buuxa xaar baa ka buuxa qashin baa ka buuxa waxaan ku jiro ma jirto hatta waxa laga yaabaa dad nool inay ku jiraan in la si fiican in loo keeno oo la baaro way meeshan ayga Ismaaciil Maxamed baa 10 sano ku jiray waxyaalaha ugu yaabka badnaa iga gurigan hadda anaag taaganahay qol baa ku yaala qolkaasi marka qolalka ciqaabta buu ahaa waxa jirtay qolkan anaga oo degan inay muddo dheer aanu ku jiray xitaa aanu rabadlaana ku soonnay laba rabadlaan baan ku jiray marka guriga aad arkayso saxaradanadii iyo tiina lagu shibayay xigi ka soo dareeray ya halka banaanka ah ee meel arki doontaan iima jirin
waa guri dadka binaadamka aan annagu ku nooleyn weeyaan saxaradanadu meel aan oola tegi jiray ma jirin waxaan malayn labadaa rabadlaan weligeena maanaan suuli arag iftiinna maanaan arag isaga un baanu wixii ninkii saxara ay ka timaado uu ku dhex saxaroon jiray kii kaada ay ka timaado uu ku dhex kaaji jiray marka waxaan samayn jiray ka dhinta marka adu laba nin baa naga dhimatay labadii nin xilli habeena bay midna maalin buu naf baxay midna habeen labadiiba marka habeenimo baa la qaaday intii la soo sugay laba maalmood isku xigtay kala naf baxeen marka laba nin waxaa la jiray Cabdullaahi Daahir iyo Cumar Sheekh Cabdi la oran jiray marka nimankaasi markii naf baxeen xogow anaga nafs bay noo noqoto ciqaabtii ma garanaysaa faraha bandadkii dhinac isku hayay yaa naga yaraaday afar jeer garaan xaaran loo keenay kolkaas ay ugu darnayd waqtigii dhibaatadii jirdilka iyo waxaas kale sahal iska noqotay dadkii wuxuu ka mid ahaa godadkii ciqaabta ee maxaabiista loogu tala galay ee lagu ciqaabi jiray isboorti baa ugu magac dareen oo eega ku qoranta eega waa la fiirin karaa isboorti bay dhaheen oo waxyaalaha qofka iyagu sida gaarka ay odhan jireen ha loo ciqaaba isboortiga la geeyo odhan jireen soo daro yaa lagu shubi jiray marka godkani waa sidaas waa godkii xaarka oo dadka maxaabiista ee godka isboorti la dhaho kaas hadda soo dhaafnay kii soo sharaxaynaya kii marka intii loo soo daro lagu shubi jiray weeyaan saxarada maxaabiista dhammaan isugu timaada lama tirin karaba dadka ku dhintay wax hadda aqliga koobi kara ma ahaba way farabadan yihiin dadka ku dhintay dad waxaa jirta markii saxaradii lagu shubay ay naftiba ka tagtay soo godka ku jira waa lagu hayaa qolkii waxay noo haray 7 sano ku xilnaa halkan 7 sano yaan markii hore ku xilnaa godkan waan soo galay ka halkaasaan galay ma taqaanaay sideedaad qolleeyaan ku jiray adoo 7 sano markaan ku xilnaa halkana ka baxay wala siiday caadada cafiidan wala siiday waana la qaaday ma taqaanaa gaarkana la saaray intii direysna loo xiray albaabka kama aan bixi karin ana askari oo sidoo ma taqaanaa u labisan oo shaqadii ku jira yaa la soo qabtay 22 nin baan ahayn 22 askari baa la soo qabtay godkana lagu guray waxa la igu dilayaa la soo qabanaya war maxaabiista sidan awla dhaqmasaan ka daayo maaligu sidan sharci maaha inaad sidan loo laayo ma taqaanaa iyagoo dhaawac oo dagaal ku jira la soo qabtay in bud iyo gaajo lagu dilo sharci maaha ku yiri taa awgeed baan ma taqaanaa god la igu riday eega qolka inaga horeeya 3 bilood baan ku jiray 3 bilood annagoo 8 inaan ku jiray oo ciidan oo askar ah oo askarta meesha shaqeynaysa maxamed baad ma taqaanaa yaa daawo u keentay maxaa Suldaan Fawzi yaa kiliinkii dhiikarka hoosta ka siisay yaa ma taqaanaa la dhibaateeyay oo la dilahay bismillaahir rahmaanir rahiim xalima shaqali baan meesha 10 sano ku xidhnay ayadoo rag badan oo la soo koobi karin oo hebel ka kooran sida dalmaaxo kale iyo siyaad dheer oo kale Cabdirasaaq dheer oo kale Ciise Macalin Cabdi Xaliim oo kale rag badan oo adigu wiilasha ka magacaabayo kale gabdhaha caaya baa la yiri waana loo soo kaxeeyay guryahana loogu keenay kii dib uga istaagay ba maxaan ku dhahay halkii hortanada ahayd baa inta xiniyaa laga laagay mid waliba sanka dulkiisa ka sii daayay oos madow mid waliba halkii buu ku nafbaxay wiilasha ayada saasaan qaatay oo kaalay waxaan ku dhahay dhibaatada ma jirtiin gabdhahana ninka waxaan ku dhahay inaan eega magaciisa halkan ka sheegaynin intuu markaa commission naga intuu noo soo galo oo ninka noo soo kaxaynayay ragga ee oranayay kaalay nimadooda naagtaad fiilada ka galeysay soo qabsa gacanta ninkii oranayay waxaan ku dhahay intuu noo soo galo uu gabdhaha saaisha u mariyo gabadhii dhaban la hodhan intuu ka haysto ayuu dibadaha ku soo fuulayay taas way ka jirtay meesha marraba magaciisana sheegay shilxankii meelihii lagaga dhajiyey saas ugu dhaganaa marka meeshaas oo aan lahayn wax iftiina wax maxaan ku dhahay dabayla iyo wax maxaan ku dhahay waasacnimo midna aan lahayn qolka intaa leeg adigu haddii aad qiyaasto waa 1 mitir oo isku weera marka qolkaasa waxa lagu ciqaabi jiray in ka badan 50 ruux marka waa dareemi karisaan intaas oo boqolaal
ama intaasoo sana ay ku jireen meeshaas ama intaasoo biloodba ruuxii ku jira halkaa kaadi loo soo bixinaynin cunto la siinaynin suu noqonaya waa dareemi kartaan marka way ku wada curyaameen way ku cagabeeleen way ku gacmabeeleen way ku wada waasheen qaar fara badan oo ka mid ah way ku waasheen in fara badan oo ka mid ah raggii ku ciqaabnaan jiray way dhinteen markii dambana meelaha lagu hogay marka qolkan uu saas u ahaan jiray qolkii ciqaabta la dhigi jiray waa magac gooni u leeyahay qolkan iyo inta aad aragtaan waardiyaashu meesha hoostooda oo dhan qolalka ku yaala waa noocaas oo meedhan way بسم الله الرحمن الرحيم أنا فاطمة حسين بالي هذا سببت اللي يقص حدا اللي كان أنا وحيد أنا ألف أرنت النذا قضاء حكم كان نجا يدبات هذا النذا عبد بدأ كذب دي كذب هل كان نشوفني إلا عبد بدأ إلا حسن داري حل لك قاضي أظل لبض كون يا سجالك بيش تمناد بنا الزوحرة لبض كون يستدي تبانك بيش لبان وانا السود داي marka inta dhibaatada halkan ka jirtay waan ognahay xaaladda marka dhibaatada aad u fara badnayd waxa la soo koobi karana ma aynan ahayn wixii ugu dardarnaa hadaan wax ka soo qabto foosto intii la soo qaado halkan waa meeshan ay balbaad nooga dhisnay waxa dhacday gabadh umul ah oo dir dhaba laga soo qaaday oo nafteedu qabri daar u dhalatay yaa lagu riday foostadii waa lagu bariyay 15 bari iliyadii ilmaheedii aynan isarag marka biyaha loo dhigi jiray roobka da'ay inta calaladana laga dhigan loo dhigi jiray foostooyinka biyaha intii la dhaxteen biyaha waliba biyaha kala tuushana laga shubahayay marka dhibaatada qaladan aad arkaysaan waa qidaadkanaga waa kuuna lagu qidaadahayay gabdhaha lagu qidaadahayay intii calalada laga dhigo waa soo arki kartaan yaraantooda iyo dhibaatada intay leegtahay marka gabdhaha waxa noogu jirdil badnaa horta ninka caynsan la yiraahdo gaajo nagu dilay caynsan ninka la yiraahdo gaajo nagu dilay intir iyo tuqaan iyo dhibaato badan baan halkan kala kulanay maxaad aragtay ruux islaamaha nool dhaqdhaqaaq ah iyo wuxuu abana waay wuxuu wax ku farxashana waay wuxuu liqada dib waay caruur yar oo iyo baahi iyo gaajo u dhimatay baa tifahay caruurtu kolbayba ku jireen 270 ilmood halka ku jirto wixii ka baxeen wax yar ahaa baahi uu dhimatay toban sano aan halkan ku xidhnaa dhibaato fara badan baa tiilay jirdil baa yiilay dabitaan baa yiilay qidaad iyo waxa yiilay god la isku rido oo la isugu qabaynayo xaarka yaa yiilay dhibaato fara badan baa tiilay waxaan ugu horeeyay waqtigii aniga la soo xidhay ninka Cabdi Bade la yiraahdo Cabdi Bade habeen haduuna la dilin habeenka labaad uu dili jiray dhibaatadiisu aad iyo aad bay u badnayd gabdhahana gabadhii dhaban loo dhan uu marin jiray intuu noo soo galo ka hiblay ka intuu dhaw uu geysan jiray dibadaada marka uu ku soo isticmaali jiray ahayd meeshii lagu diri jiray anuu halkan baan curyaana jiif jiray joogadana curyaana ka baxay hadana alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa ma qabo barkadan waa lagu ridi jiray salkeeda inta saan loo qabtana lagu tuuri jiray marka xarka iyo kaadida iyo waxaan ku sheegay dhiig iyo wax kasta ku dheer korka laasho ana lagu dirin inta lagu soo galo marka saas bay ahayd عبد الرحمن ظاهر عبد الله sida nimanka xuquuqul aadamaha markay soo galayaan yaa waxoogaa neefaf ari aha iyo in basbaas iyo waxbay bariiska saa ku yar oran jireen marka si ay u arkaan guryahana way goglayeen oo si fiican bay quruxsan bay u gogli jireen marka sida dhahabay oran hayeen bilic fiican muujiya wixii bugtay ama waalan ama waxa weeyaan si daran xaqana laga geyn jiray marka dhibaatooyinka badan xabsiga gudayna waan soo maray oo in badan baan ku soo aqaabnaa anuu 5 sanaan xidhnaa waan idin salaamay akhyaarta haddii aad kanaalkan ku cusub tahay fadlan subscribe saar si aad fiidiyoyada cusub ee kanaalka ula socoto taaban gambaleelka notification-ka